horta kiiskaas haddaad og tahay waxaa la diiday oo xataa nafteeda khatar loo geliyey riboodka hay-adda ay ka hayso inay golaha amniga qaranka geyso maalintii loo madlay in golaha amniga qaranka la geeyo warbixintaas oo guddiga amniga qaranka la hordhigo waa maalinta aniga Jabuuti lagu xiray oo nafteeda khatar la geliyey oo nolosheeda khatar la geliyey ayada mawduuceeda markaa laga yaabo inaan ka sheekeysano hadda ma galaayo taas dantii laga lahaana waxay ahayd inaan xamar imaanin oo aan warbixintaas dhiibin taasoo kaliftay inaan dalka dib uga soo laabto oo diyaaradda la soo celiyey oo dib loogu soo celiyey meeshii aan ka imid horta waxay ku tusinaysaa dadka mu'aamarada gabadhaas sameeyey inaysan raalli ka ahayn xogtaas inay baxdo laakiin maanta xogtii baan adiga ku siinaya haddana soo dhawow gabadhaas mu'aamaradeeda siday u bilaabatay ilaa u dhammaatay waxay shaqo u doonatay xafiiska ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble gabadha markay shaqo xafiiska u doonatay meeshii ay sugaysa in shaqo la siiyo baa dad mu'aamarad ajnabiyana ka shaqeynayay rabay dalka inay khalkhal geliyaan baa waxay u isticmaaleen gabadha nafteeda in khatar la geliyo nolosheeda khatar la geliyo mas-uuliyadda koowaadna qofka qaadaya ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble waa gabadha maalinta gaariga lagu soo qaadayo waxaa loo ballamiyey wasiir ku-xigeenkii warfaafinta alcadaala oo u kaxeeyo ku yiri ra'iisul wasaaraha shaqo ku siinayo maalmahaasi ku noqnoqota xafiiska ra'iisul wasaaraha shaqo lagu siinaa lagu yiri ayadana shaqo raadis ahayd mar waxay ka fikirtay guddiga doorashada inay oo Hirshabeelle inay gasho mar waxay ka fikirtay inay xildhibaan Hirshabeelle noqoto haddana way iska daysay markii dambe xafiiska ra'iisul wasaaraha tir shaqo u doono sidii wax u dhaceen tafaasiisheeda inteeda badan ma raba hadda inaan galo laakiin intaan kuu sheegi karo waxaa waaye gabadhaas gaariga lagu qaaday nin la yiraahdo xildhibaan oo la yiraahdo Mahad Salaad oo hadda rabta feelkiisa mar kale aan furayno ama su'aalo kale ku furayno baa la kulan siiyey asaga gaari ku qaaday gaarigii baa laga qaaday waxaa la geeyey Daar es Salaam xaafad la yiraahdo xamar ku taala oo dadka magaalada ugu ladan ay degan yihiin gurigaas laga qaaday waxaa la marsiiyey Shabeellada Hoose meel jilib u dhow baa la geeyey halkaasaana lagu dilay nin la yiraahdo Mahad Karatay oo madaxda shabaabka kamid ah operation ka fuliyay oo ay xiriir dhow leeyihiin Mahad Salaad ra'iisul wasaaruhuna aweer buu ahaa wuu ka warqabay dhibaatadaas in loo geysanayana wuu ka warqabay aakhiro ay adduun qofka gabadhaas la weydiinayo waa ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble farsamada lagu fuliyayna alcadaala iska lahaa gacanta fulisayna Mahad Salaad waaye cidda dishayna waa al-shabaab sidaas aan kugu sheegay oo qorshahaygu ahaa inaan guddiga amniga qaranka hortooda ka sheego laakiin si aysan xogtaas u bixin waxaa la qaaday 4 talaabo hay-adda in la dhoofaada shaqada laga joojiyey taliye cusub in loo magacaabo waad ogtahay in taliye cusub loo magacaabay aniga eelaboorka lagu celiyay Jabuuti anoo taransida oo dawladda Jabuuti la isticmaalay oo la dhaxgalay markii aan xamar imaadayna waxaa la diiday shirka in la qabto waraysaaro wuxuu diiday inuu shirka soo qayb galo marka haddii kiiska inta talaabo oo la qaado waxaad ka garan kartaa cidda qaadaysa maxay kiiskan u qaadaysaa taliyaha nabad sugidda haddii la rabo in la baaro shaqada laga joojiyey taliye kale la magacaabay safarkii baa loo diiday shirkii baa la diiday waxay ku tusinaysaa waxaasoo dhan waxa loo sameynayo lixaajatin fi nafsi Yacquub wax uu og yahay baa jira waa wax asaga uu og yahay inuu sameeyey maadaama uu sameeyey cid allaale iyo ciddii warbixintaas sheegi kartaan inuu la dagaalamo dagaalku ra'iisul wasaaraha uu waday oo hay-adda ku qaadan laba hadaf oo kala ahaa sumcadda hay-adda in la dilo institutionka dawladana la burburiyo waa meesha ajnabiga ay ka soo galeen oo ay rabaan hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka maadaama ay dawlado fara badan dhaaftay oo qaarkood dariska ay ka hormartay in dib loo soo celiyo heerkii faragelinta maalinta aan ku sheegayna lagu soo celiyo hada dhahay gabadha gaara lagu qaadaysaa sheegtay waxaa la geeyay xaafad magaalada Muqdisho kamid ah gaarigana waxaa sheegtay in loogu ballamiyay xafiiska wasaaraha waliba aniga wadanka waa ka maqanaay markaas sidku ogaatay waxaan rabaa inaan kugu daro xataa aan ka ilaabay dadkaas mar kastoon aniga wadanka ka maqanahay mashaariic sameeyaan kiiska ikraan waxaa la alifay anoo maqan kiiska hay-adda isbedel lagu sameeynaya waxaa la sameeyay anoo maqan 3 bari ka horna ma aqaan la socotay isbuucii hore gurigayga la galay ciidankii iyo qalabkii iyo wixii yaalay baa la qaatay anoo maqan hal mar anigoo jooga waa awoodi waayay inay wax sameeyaan sidku ogaatay xogtan dalka dad ka maqnay waa xog culus oo xasaasiya in dad mas'uuliyiin maanta ah oo mas'uuliyiin xilal sare haya oo waliba booska aad joogtay niisa sargaalka loo magacaabo mas'uulka loo magacaabay
aad ku eedanayso inuu kiiska isagu wax badan aan ka ogahay intaas kaliya ma aha qal dhibaato fara badan oo amni darrada dalka ka dhacday qayb bay ka ahaayeen dadka aan ku sheegay ilaa ay gaareen xataa dariska inay dhibaato ka geystaan professor cabdiwahaab oo Nairobi jooga ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ka shaqeeyay oo dhaqaale ku bixiyay oo systemka dawladda Kenya iyo dad kala duwan dhex galay oo gaangis rabay inuu isticmaalo qorshahan wuxuu ahaa professorka in la dilo waxa la rabay in loo dilana hal shay bay ahayd maxaa dawladda Soomaaliyeed qaran Soomaaliya u difaacaysaa intaas loo dilay waliba professorka waxaan diyaar u ahay in arrintaas xogta uga baahan yahay waqti kasta uga baahan yahay ka siiyo kiiska ikraan doorka mahadsala waa hadda hay'adda nisa jooga maxay ahayd intaan ku sheegay bay ahayd haddaad rabtid kiiska gabadha intuu ku lahaa waxyaabo kala jira laakiin kiis gabadha haddaad dhubtoontid intaas buu ku lahaa mu'aamarada ayaga wada sameeyay gacantii fulisana mahadsalaad buu ahaa yoolka laga lahaa maxay tahay laba arrimood laga lahaa in hay'adda sumcadeeda lagu dilo amniga dalkana lagu khalkhalgeliyo mahadsalaadna amni darrada dalka waxyaabo badan oo khalkhal ku sameeyay in ka badan 60 maalmood oo gabadha la baadi goobayay fahad uu gabadha shakhsiyan ehelkooda garanayay family ay ahaayeen ay garanayo ay daris iyo wax kasta ahaayeen sargaalada hay'adiisa ka tirsanna la weysanaa oo la dilay 60 maalmood ka bacdi September bilowgeedii ayaa soo saarteen war saxaafadeed aad u hooseeya luqadda loo isticmaalay oo lagu baahiyay telefishinka dawladda iyo warbaahin dawladda oo lagu sheegay in gabadha Ashaab dileen kadib Ashaab maalin kadib way beeniyeen sheegashadiina ehelkii gabadhuna waxay sheegeen in ay la xariireen al-shabaab oo ay diideen inay iyagu falkaas geysteen horta al-shabaab ayaa diiday fahad inay sheegato dilka gabadha ehelkeeduna waxay sheegeen markay al-shabaab la xariireen inay yiraahdeen anagu ma ogin horta waxyaabaha aan aad uga calool xumaado waxaa ka mid ah ra'iisul wasaaraha qaranka intuu maalmaha ka mid soo istaagay in asagii al-shabaab isku luqad noqdeen hadda xusato wuxuu yiri hay'adda warbixinteeda ma aaminin kuma qancin taasoo macnaheedu tahay mid shabaabkan rumaystay taa laftigeeda waxay ku tusinaysaa shaki abuuraysa qofka oo wax fahmi kara ra'iisul wasaarada dal hay'adiisi amniga warkeeda intuu u beyniyo mid al-shabaabka uu rumaysan kara familka gabadha hooyadeedana waa la fariistay markaan la fariisanayna marqaati bay lahayd waxaan u sheegay laba kalmadood waxaan ku yiri hooyo kiiskan aniga gacanta ku haya baaritaan baan wadaa khayd baan ay baxay yani xarig baa ay baxay xarigaas inta uu iga dhamaanay iga warso laakiin hooyadii hooyay noqotay way jilacday dad siyaasiyiinna waxay damceen inay kiiska isticmaalaan si la socotana kiis gabadha waa la siyaasadeeyay gacantuna ka baxay annaguna marka mar hadii wixii gacanta ka baxeen annaguna fawdadii meesha jirtay inaan qayb ka noqono diyaar ma nahayn meeshii ay ku habboonayd in lagu sheegana guddiga amniga qaranka ahayd guddiga amniga qaranka inaan Soomaaliya galaab la diidayba ra'iisul wasaaraha Soomaaliya wuxuu sheegay inuu og yahay dadkii dilka dambe sheego aruntiisa aan maleena uu og yahay aruntiis laakiin adal weedaynaya ra'iisul wasaaruhu wuxuu sheegay in uu markuu wasaaruhu ma oranin Fahad baa ka dambeeyay horta waxa uu sheegay hal mar ma dhihin waxa uu sheegay maalintii ugu dambeysay ee Muqdisho uu ka hadlayay ee 30 Maarch ahaa in 14 xildhibaanada baarlamaanka Abriil la dhaarin doono kuwii ikraan iyo aamina dilayna halka lagu cadaalad marin doono oo laga hor istaagi doono inay cadaalad ka dhuntaan cidda kaliya ee 328 mudane baarlamaan ee gobolada laga soo doortay shahaadada loo diidayna waa Fahad Yaasin soo kama dhigna cadaaladda ra'iisul wasaaruhu raadinay ama uu sheegay inay adiga ahayd in baarlamaanka laga reebo si labada kiis على العدالة والنظام. غيري مال في عم ضدك سو جلسي. أنا مرة بين أنا برسونال كده. إن أنا يحل بان لماذا اللي يحنبه وحكت السنة يسا رئيس الوزراء حكت أن أجهي بوحو آمني هذان حل بان قالها شعب كده حفريسته أنا وحو أن كشف الدونه لكن شخصية ده ما يقارنه. شخصية ده حل بان لماذا قالها شعب كده حفريه كم جرته الشخصية ده أنا لا وأنا ما أنت قوة عدينا يأكل شيء. ra'iisul wasaaraha xaaladda xasaasiga dalka jirtay baa laga yaabaa in looga aamusay laakiin dadka Soomaaliyeed oo adigu kamid tahay inta dib u dhageysato wuxuu afkiisa ka sheegay cidii samaysay baan aqaan wuxuu sheegay waa cidii samaysay sumsuul kama saarna wuxuu ugu sheegay waa hay'adaha garsoorka wuxuu ugu sheegay waa hay'adaha amniga
wuxuu yiri u fiirsa hadalkiisa al-shabaab baa lacag la soo siiyo jidkay soo martay oo waday soo martay oo qofkii soo qaadan aqaana waa ra'iisul wasaarihii dalka mutalaabo ka qaado muu sheego sida hadda anu u sheegay muu u sheego muu ficil sameeyo maxaa diiday laakiin ana hadda ku sheegay waa runtiisu uu ogyahay cid samaysay waana asaga inta ku xiran anaga taa dambe ma dhihi karno adiga eedayntaada waa waxaan rabaa inaan ku weydiiyo Saad Yaasiin maalin ka mid ah markii Djibouti lagu xiray maraan ismaqalnay markii lagu soo celiyay kadib waxaad ii sheegtay in shirka amniga qaranka aad tagi doontid warbixin halkaa ku dhiibi doontid maanta waqti badan ka soo wareegay maxaa dhacay oo inta dhan kiiskan heerka gaaray ee xogtiisa ee sargaalad aad garanaysid faamilhaan u garanaysid aad dadka oo dhan baan garanay qaraabo oo dhan baan garanay hay'adda aad madaxda u ahayd kamid ah askartaadii ama dadkii ugu dhawaa inaad tiraahdid intaas ka aamusnaatid maxaa ku kalifay mid waxa wahayd meesha institutionska dawladda aniga taliyaha nabadgelyada Soomaaliya soo noqday kabacdina la taliyaha amniga qaranka noqday meesha ay tahay horta warbixinteeda inaan geeyo waa guddiga amniga qaranka meeshiina shirki inuu qabsoomaa laga hor istaagay wasiirka cadaaladda loo diiday inuu ka soo qayb galo wasiirka amniga loo diiday inuu ka soo qayb galo ra'iisul wasaarihii baa diiday inuu ka soo qayb galo haddii ra'iisul wasaarihi uu ka soo qayb gali waayo de waxay noqonaysaa garab ka soo horjeeday oo sheekaystay buu u fasiranaya anuna meeshaan rabay warbixinta inaan ka jeedo waxay ahayd asagoo fadhiya inaan sheego haddii taa ay hirgeli weysay laba sababood baa jirtay mid dalka xaalad doorasho ku jiray maan rabin fulkaano kale inay qarxdo buuq qarxo lambar 2 madaxda la socota madaxweyne Maxamed Abdullaahi Farmaajo wuxuu xakameeyay hay'adaha amniga ah inaysan gacan aan aamin ahayn aysan galin gacan aan aamin ahayn markaan ka wadana ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo rabay hay'adaha amniga inuu dhex galo taliyaasha bedelo wadanka oo dhan uu qalalaasa galiyo waxyaabihii loolanka ahaa ra'iisul wasaare wuxuu ka dhigay siyaasad laakiin annaga waxay noo ahayd dalkan bal inuu taagnaado inta doorashada laga gaarayo haddii Maxamed Abdullaahi Farmaajo madaxweynaha uu soo laabtana khayr haddii kalena qofkii kale loo dhiibay uu go'aan gaaro marka haynta in la haayay baa keentay bal horta meel in lagu simo gabar dhinac gabarka ah Soomaaliyeed dhinac sargaaladka ah hay'ad ka tirsan nisa dhinac muwaadin Soomaaliyeed oo la weysan yahay xogteeda maxaa ka muhiimsan oo la sheegi lahaa hadda xogta waa laba dhinac yaa gabadha dhibaatada dilka u geystay waa sheegnay yaa ka dambeeyana sababtan u sheegi weyna waa ku sheegay waxaan ku yiri goliyaan ka sheegi lahaa waa la diiday laakiin waxa la wooday inaad shijir ay qabto sidan oo kale hadda saas institutionada dawladda ma shaqeeyaan يعني قرنimada Soomaaliyeed iyo hay'adaha Soomaaliyeed waxa la fiiriyaa waxa aad sameynayso maxaa ka dhalan kara aniga inta nabad sugidda madaxda ka ahaa intaas oo file oo sensitive oo khatar ah ay soo maray waxaan ka shaqeynaya ma xakameyn kartaa ha wax xakameyn kartaa hada xakameyn karto dadka qalqalin laakiin adan hadda ku weydiin hadaan inteedii caddi soo istaagay intaan ku sheegi lahaa waxa la dhihi lahaa dawladda mucaarad target gareynaysa wax kale lama dhahan laakiin maanta dadkii baa qaarkood xukun ka haya saad u aragtaa maanta inaad sheegtid ma xogtaas waxaan u arkaa in la helay fursad lagu la xisaabtamo dadkii dambigaas geystay ee falkaas ku kacay Fahad Yaasiin fursad baaritaan lagu sameeyo fursad xaqiiqada lagu gaaro Fahad Axmed Daahir ehelka gabadhu maxkamad bay furteen waxay maxkamadda dadka looga la qoray magacyadooda adaa kooka diyaar ma u tahay inaad maxkamad iska difaacid waad hortagtid waxaan rabaa inaan ku sheego su'aashadan oo kaaga jawaabayo kiiska maxkamadda ayaa furay Maxamed Xuseen Roble furay horta iyo ragii la shaqeynayay isla idin maxkamaddii baa anuu ka dhageystay iyadoo la leeyahay Fahad Yaasiin waa bari isla maxkamaddii baa tiri warqad soo saartay oo tiri Fahad shuqul kuma lahan ragii kale oo magacooda la sheegay shuqul kuma lahan hay'adda nabad sugidda shuqul kuma lahan labada jeerna anuu idaacaddan ka dhageystay waxaan diyaar u ahay xaqiiqadaas cid allaale iyo ciddii dambigaas geysatay in la dabagalo la maxkamadeeyo xuquuqda ay mudan yihiin la marsiyo adigu maxkamadda waa tagaysaa oo iska difaacaysaa hadda maxkamadda haddii la iga yeero ma diidi karaba diyaar u tahay maxkamadda ma diidi karaba de waa sharci ma diidi karo xogta aan ku sheegayna waliba waa 10% ka badan baan hayaa oo ayada khusayso u sheegi karaa 22 July 2021 agaasimaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee hadda xilka haya Mahad Salaad Maxamed bartiisa Facebooka wuxuu ku qoray oo uu sheegay in kiiska khaarijinta sargaalad Ikraan Tahliil aad soo maleegtay adiga Cabdullaahi Kulana Chiis
iyo Yaasin Fareyna uu ahaa fuliyihii kiiska ee gacanta ku lahaa sidaas ma jirtaa أنا فيسبوك ملهي دوسها قرينا وامقلا إنه قري قف بأي شيء إنه قري إنه ليكم آخر سنة لكن أيضا الافتقاد عدينا أيضا الافتقاد شكئة حلبان مقالة اسكت جوجا محق لي إنه هبل هدلي ما هي سردان بو شقيا ما ربحين سردان بو هلا يا أشياء حقتان حتى رئيس الوزراء أمركم إذا عدى سوي استاي أنت هداي شيء يا أشياء حقتان إن مركا أو سيدا ده كل جيدا وحيتون أبو رسام حاكيس كان سود حق لي واي وكيس كان وصل دونت وقف ربا جريمة وسمي إنه ضد كلا كوبين أبورت كيس كان أنتي وسعودي ضدك الصوماليات يضلك حليس أيوة قال حليس تاس وهاي إن دجال سكية قرق الله فورو يقرأ على سد دولة الصومالية وحليس قلي مقناشها سرقالد يجبر الصوماليات وهايد إنه سويد سوى كت السنة أو مواد الصوماليات أو سدي سبعة أيتهاي إن حقوق دي سال دورة وسببت أنا أمسني أنا ذلك الله وسيدرين متكم إذا واي أنا ذلك أنا وسيدرين مواد كي يضلك الدحوق عدة خصيصي وأوشجني الصغر يزارون وأجيهي هي هذه خصيصين وأجيهن ما كلنت حلالنتم كلنت محكمة دعيرة ما هذه في هذا مكورست ما حلالنت هذا كيس وحن كلها إذا عدنا كده جيستاني كليه إن كيس كلا بلابن إذا عدنا كده جيست إن كان كلا سمينا إذا عدنا كده جيست كل ما كل من بعرست حنكم موجودين حلالنت هذا هي دون بلا كلنت هذه لكن شخصيا كل ما عد كستي لا كلنت قف كستي لا كلنت أنا لا كلنت سراكي شكل لا كلنت عدول بي وريست كيسك إكران waxaad ii sheegtay 10 boqolkiiba xogtaad ka haysatid naadan iyo wada sheeg xadiidii inaad wada sheegtay hay-adaha ay khusaysan u sheegaya goorme waqtigii ay munaasib noqoto ama waqtigii ay ku habboon tahay in la sheego markii kiiskan uu dhacay warqad baa soo saartay wasaaruhu uu ku yiri warbixin soo gudbi warbixintii horena kuma qancin warbixintaasi luqadda ay ku qornayd aad bay ugu hooseysay xushmada ra'iisul wasaare oo golaha fulinta u sareeya in loo qoro waa tiri golaha amniga qaranka imow halkaas ayaan warbixinta ku jeedinayaa luqadeedu ahay walaalo ani ma aqaan sababta aad u tiri way hooseysay because amniga dalka hay'adda ugu sareysa waa guddiga amniga qaranka oo wasiirka cadaaladda wasiirka amniga wasiirka gaashaandhigga wasiiradaas ay fadhiyaan gobernatoraha muqdisho uu fadhiyo madaxweynaha fadhiyo ra'iisul wasaaraha fadhiyo taliyaasha ciidamada fadhiyaan aniga marka xogta aan hayay haddaan dib hadda ku xusuusiyo waraysiga maanta aan ku siinayo iyo xogta maanta aan ku siinayo iyo warqadda maalintaas aan soo saaray waa islahayd because sidee baan xogta u siiyaa qofka dembiga sameeyey sidee baan asaga u adrees gareeyaa oo warbixin ugu gudbiyaa hadduu asagii qayb ka yahay ma ninkii xukumayey iyo ninkii dembiga galay baan isku mid ka dhigaa inaan marka maalintaas dalbaday meel aan ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble ahayn inaan xogta siiyo waxay ku tusaysaa xogta aan hayay sensitivity-geeda iyo jihada aan rabay inaan wajahayo haddii aan ogaan lahaa oo ay ahaan lahayd inuu beri ka yahay qofka ugu horeeyaan siin lahaa buu ahaan lahaa waana sababtaan uga leexday ehelka gabadha hooyadeed inaad kulanteen ay saxaafadda ka sheegtay adigana waa ii sheegtay dad markhaatiyaan idila joogeen maxaa ku tiri intaas aan kuu sheegay waxaan ku yidhi hooyo khad baan hayaa khayd baan hayaa xarig baan hayaa inta xarigaas uu iga dhammaanaya iga warsug wax tallaabaana ha qaadina warbixin dhammaystiran anaa kuu keenaya sargaal ka tirsan hay-adda ma u dirtay oo gurigeeda ma kula kulmay markaad xogtan heshay kadib kulankaas ka bacdi sargaal uu la kulmay wuu la kulmay waxaana u sheegnay hooyo idaacadaha aad ka hadlayso iska jooji naga warsug annaga laakiin markaan aragnay hooyo inay idaacaddii istaagtay idaacaddii ka hadlayso ra'iisul wasaarihii laftigiisaba uu sii boonbooninayo warkii waxaa socday wax kale mu'aamarada aan kuu sheegaya socotay laakiin familka uusan ka warqabin xaqiiqadan ogeyn maxaad qoyska ula wadaagi weyday maadaama aad si shakhsi ah qoyskaada u garanaysid haddee wixii duruufihii jiray oo siyaasiga ahayd oo markaas jiray waa aniga kuu sheegay intaas shay oon ilaalinaynay bay qayb ka mid ahayd markii aad ka laabatay halkii aad joogtay markii falkan u dhacayay Djibouti baa tagtay intaanan kiiskaas u gudbin alcadaala iyo mahad salaad iyo rooble waxaad noo sheegtay inay yihiin
cidda Soomaalida ah ee kiiskaas abaabushay maxay ahayd annaga ma hayno mana xaqiijin karna eedayntaada laakiin maxay ahayd ujeedadii ka lahaan kareen adigu xogtaada ogaatay aad hesheen cidda ajnabiga ma ka wadaa mise waxa ka wadaa Soomaalida hadda waxaan ku dhahay waxaa la rabaa in hay'adaha amniga la burburiyo dalkana qalalaasa la geliyo haddayse intaas ahayn waay aniga Jabuuti la igu xanibay haddii dambi la igu haya maxaa xamar inaa imaado la igu ogolaan waayo xataa diyaarad khaasan ku tegay markaan tegayo ku laabanaya Jabuuti markii la iga celiyay kabacdi diyaarad khaasan qaatay diyaaradii khaaska waxaa la isku dayay elaboorka inta la soo galo in baabuur cabdibilaa wadada lagu xiro Jabuuti qisadeeda iga war walaalo Jabuuti waxa dhacay ilaa hadda waa fahmi laah dal Soomaali ku hadla isku dhaqannahay isku diinnahay sababta beegsiga intaas la eg ay aniga iigu sameeyeen waxaan garan waayo waxaan rabaa markii ugu horeysay inaan kuu sheego qorshaha in la xiro ma ahayn in la xanimo ma ahayn shirqool nafteeda lagu khatar gelinayo oo ku dhamaanaya Fahad Yaasiin waa la waayay in la sameeyo ahayd kiiskii Ikraan mar kale waxaad sheegtay in xogtiisa 10% kaliya aad baahisay aad iyo ogolaatin aad sheegto inta kale 90% waa xogtii ugu badnayd waa gorma sheegaysa waqti ay ku habboon tahay iyo cid ku habboon